وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين أما بعد مدن قدوميها مدوغا نبدا يهور مركا مدن حسن شيخ محمود أهنا مدحويني هوري جمهورية فدرالك الصومالية xildhibaanada labada aqal ee halkan fadhiya gudoomiyaasha axsaabta siyaasadda dalka ee halkan fadhiya aas-aasayaasha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka marti sharafta dhaqanka haweenka dumarka baahda saxaafadda dhammaantiin waa salaamintiin salaan kadib halkan waa maalin weyn waa maalin aan isugu nimid mar kale inaan u dabaaldegno horumar uu ku tillaabsaday dalkeenna iyo dadkeenna iyo tillaabo aan sugaynay muddo dheer oo ah in xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ay runtii nala garab galaan halgankii aan u soo galnay dalkan ee dimuqraadiyadeynta waxaan ku faraxsanahay mar labaadna u hambaliyaynayaa halkaana ka bogaadinayaa inay xildhibaanadii ugu badnayd ilaa hadda oo xisbi isku bedela inuu yahay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka marka hambalyadaas iyo bogaadintaas ayaan rabaa inaan halkan ka jeediyo aniga iyo xisbiyada ah waxa weeyaan farxad gooniya ayay noo tahay gooni ahaan iyo xisbi ahaanna annagu xisbiga wadajir haddaan nahay waxaan leenahay hal kudhig la yidhaahdo is-ogol iyo isla guddoon inuu soo dhow yahay oo la xaqiijin rabo ayaan ku naaloonaynay mar dhow dalkan in lagu xukumo wax la yidhahdo co-governance is-ogol iyo isla guddoon hadday xildhibaanadii janta fagaxa ahaa ay is-organise gareeyeen oo is-abaabuleen inta dhimanna is-abaabuli doonaan waxaan aaminsannahay dalkan marka wixii ka dambeeya qofkii mucaarad ahna asagoo abaabulan buu joogayaa qofkii muxaafid ahna asagoo talada wax ku leh ayuu joogi doonaa marka arrintaas waxay soo dhowaynaysaa ninka gudaha ku jirana inuu wax ku guddoomiyo ninka bannaanka joogana uu si sharci ah waxa jira ama dalka taladiisa uu wax ka ogol yahay markii intaas laga soo tago xisbigeenna iyo anigaba shaksi ahaanba ragga ku midoobay individualiska iyo axsaabta ku midowgan waxaan nahay dad runtii saaxiibo dhow la ah saaxiib muddo badan soo wada shaqeeyey dalka kala soo shaqeeyey labadii maamul ee dalka hadda ka jirtay ee lasoo dhaafay aad ugala soo shaqeeyey dadaan aad aan u naqaano waxyaalo fara badan aan isaga mid nahay oo ah daldhiska aan aragtiyo fara badan aan ka leenahay isku aragti aan ka nahay waxyaalo badanna aan u kala duwan nahay aan naqaano waxyaalaha aan ku kala duwan nahayna sidaan u maarayno iyadoon tiirkii iyo gurigii la soo dumin waxyaalahaan ka midaysannahana sidaan u wada reexanno aan isla naqaano waaye marka mar labaadna soo dhowayntiis ayaan ku darayaa waxaan rabaa sidoo kale halgankii dheeraa ee loo soo galay dimuqraadiyadda wuxuu lahaa tiraanturooyin fara badan tiraanturooyinkaas waxaa ka mid ahaa runtii in dad loo xiray waxaa ka mid ahaa dad inay u dhaawacmeen waxaa ka mid ahaa dad inay u dhinteen annagu xisbi ahaan oo xisbiga wadajir ilaa haddeer waxaan naga dhimatay 5 shahiid oo ku dhimatay dimuqraadiyadda iyo shuhadaa'u dimuqraadiya ee dalkan inuu helo oo xasilooni iyo nabad inuu helo ayaa nooga dhimatay waxaan rabaa mar labaad inaan halkan uga mahadceliyo xisbiyadii ku midoobay xisbiyadii ka horreeyo halkan ku midoobay runtii halkan aan ka sheego xisbiga daljir iyo xisbiga BDP iyo kullada horu socod ee halkaan midnimadooda ku soo bandhigay iyo xildhibaano kale oo runtii siyaasiyiin inayna garab istaageen maalintaas marka waxaan rabnaa inaan ka mahad celinno garab istaaggaas iyo sida ay noogu maxaa la yidhaahdaa noola damqadeen siday noogu soo gurmadeen waxaan aaminsanahay inay noqon doonto sidaas oo kale in la isugu soo gurma doono halgankan maadaama aan ku jirno waxaan rabaa oo kale raggii xanuunkaas iyo dhibkaas sameeyena ayaguna inay ka waantoobaan maanta waa maalin haddiidaan u dabaaldegayno ayaguna waxaan leeyahay inay ka waantoobaan intaas markaan kusoo gudbo dalkeennu waxaan rabaa annagu meesha waxaa nooga furan hambalyo iyo bogaadin hal shay oo kale aan ku leenahay waxa weeyaan dardaaran
dardaarankuna xisbiga la dhisay keliya ma ahan xisbiyada halkan fadhiya keliya ma ahan waa xisbiyada halkan fadhiya xisbiga hadda la dhisay iyo dhammaan dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayuu ku socdaa oo ah dalkeennu halkuu ka yimid halkuuna u socdaa dalkeennu wuxuu ka yimid cudurro markuu dhismay asagoo curdin ah oo 9 jir ah ayaa waxaa ku dhacay dhowr cudur ayaa ku dhacday cudurkii koowaad waxaa sababay military coup ayaa dalka ka dhacay inqilaab military ah dhacay inqilaabkii military wuxuu isku bedelay dictatorship isku bedelay inqilaabku waxaa laga yaabaa wax fara badan inuu ahaa kacaan buu ahaa kacaanku mar walba inuu ahaado wax weeyaan thawrata saxiixiya inuu wax sabo laakiin kacaanku 69kii ilaa 76kii waxaan isdhihi karnaa wuxuu ahaa thawrata saxiixiya uu ahaa laakiin kadib dictatorship dalkiina burbur iyo state collapse ayaa dhacay state collapse-ga dhacay oo dalka ka dhacay wuxuu noo keenay wax la yidhaha anarchy fawdo iyo in dadku all qof kasta qofka kale uu dilay burburna u dhacay burburkaas iyo dhibaatadii dhacday iyo state la'aantii kadibna waxaa ka dambaysa dalkeena cudur kale oo waxaa ku dhacday nimankii argagixisada ahaa ayuu wuxuu u noqday safe haven iyo meel ay galaan saddexdaas cudur ayaa dalkeena ku soo dhacday saddexdaas cudur markaan isaga nimid waxaan go'aansanay Soomaalidu markay isku timid inay daaweyso saddexdaas cudur saddexda cudur maxaa lagu daaweeyey waxaa lagu daaweeyey oo inaan dhisano Soomaali cusub Soomaaliyada cusub inaan dhisano new Soomaali inaan dhisano waxaan rabaa halkan inaan ka sheego new Soomaali inaysan hashtag ahayn laakiin ay tahay fikir iyo daawo loo qoray dhibaatooyin dalka ka dhacay dhibaatadaas iyo daawadaas new Soomaali waxay ku dhisan tahay ama adawaad u ah saddex shay oo kala ah Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo federaal ah Soomaaliya oo dimuqraadi ah saddexdaas cudur waxaa loo qoray saddexdaas daawo waxaana rabnaa new Soomaali inay daaweyso old Soomaaliya dhibkii ka dhacay inay la tacaasho oo daaweyso waxaan rabaa in new Soomaaliyada waxyaalahaas aan federaal ama dimuqraadiyad ama aan leenahay waa erayo ajnabi ah laakiin waxaan rabnaa inay ka jawaabaan problem Soomaaliya haya ay solution u noqdaan Somali solution for Somali problem sarna xisbiyadu waxaan rabnaa inay madaxa ku hayaan meel baa loo socdaa la yiraahdo bila Soomaaliya ama dalka xukunkiisa loo socdaa waa meel waswaas badan waay marka tagto waswaasa ku dhacay waxyaalo fara badan ayaa waxa isleedahay sida rabtaa ka yeeli kartaa wax dadku ku heshiiyeen rabtaa kaliya ku takrifali kartaa waana runtii waxyaalo fara badan oo markii oo maxaa la yiraahdaa aad tagto inaad isku daydo inay baasha waxa laga yaabaa maamulka hadda jira asaga laftiisa inuu waswaas ka hayo federaalka in laga noqon karo dimuqraadiyadda in laga noqon karo dalka midaysan iyo wadajirkiisa iyo gudubnidiisa in laga noqon karo marka waxaan rabnaa waxyaalahaas lagama noqon karo wixiina waa dheer yihiin laakiin maadaama waqtigu uu maxaa la yidhahdaa uu nagu yar yahay ayaan rabaa waa iska soo gaabinayaa yaanan idinku dheeraynin mar labaad mahadsanin mar labaad waa idin hambalyeynayna soo dhowaada bahda xisbiyada ku soo dhowaada waxaan leeyahay madaxweynihiinnii hore ayaa maanta asagoo ah guddoomiye xisbi nala fadhiya madaxda maanta joogta waxaan u sheegaynaa dee berri ayaa nala fadhiisan doontaan adinku waa xisbiyo watee dee yaa nala ku fogeynin bahasha marka soo dhowaada waana mahadsantihin